إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد بأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. وكما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله، إلهي baan ku xamdinaynaa. meel kastoon joogno, xaalad kasta oo aan ku jirno, zaman kasta oo aan joogno, waxaa laynooga baahan yahay marna inaan ilaahay aan halmaamin. allihiina abuuray ee ina jirsiiyey ee nolosha adduunyada inagu deeqay ee waxaa mid kastoo innaka inagamida uu haystana allihii siiyey, dhimashadana ilaahay inagu xakumay, qiyaama inuu jiro laysa soo saarayo lays xisaabayana allah inagu qasbay. allahaasi inaan mar walba aan xasuusanaa oo aan isxasuusinaa. diinteenna wanaagsan ee macaan bayna faraysa. haddaan magaalada joogno iyo haddaan mii joogno, haddaan masaajid joogno iyo haddaan suuq joogno, haddaan safar nahay iyo haddaan nahay xadar, haddaan yar nahay iyo haddaan weyn nahay, dhammaanteed ilaahay waxau nagu addoonsaday inaan ilaahay aan aamino oo ilaahay aan caabudno, ilaahay ka cabsanno. ilaahay mar walba xasuusnow, halmaamin. adduunyadan aan joogno waa daar al-ikhtibaar, waa layna keenay. waxaad haysatana waa lagu siiyey. waxaad haysata ilaahay ha ku iloobin amarkiisa. in allaha tacaala mustakhlifukum fiiha fayanduru kayfa tacmaluun buu nabigu yihi sal alla alay slam. ina addunyaa xulwatun khadira, adduunyadu waa cagaar waana macaan. wa in allaha mustakhlifukum fiiha, ilaahayna adduunkan maaragtaan ininku inagu dhex abuurtay oo in qaarkiina way ku dhex dhimanayaan, qaarkiina way dhalanayaan. fayanduru kayfa tacmaluun, sidaad adduunyada dusheeda intaad joogtaan aada u camal falaysaan buu ilaahay eegayaa. nolosha adduunyada si aad u gudanaysaan baa la eegayaa. ma sidii ilaahay jalla wacalaa uu raalliga ka ahaa baad ku gudan, mise si uusan ilaahay raalli ka ahayn baad noloshaada ku gudan. dukaan ninka furtay habeen walba wuxuu rabaa inuu macaash la soo hoydo. ninka tagsiilaha ee gaadhiga tagsiilaha magaalada dhexdeeda kaga shaqaysanaya ama baslaha, habeen walba wuxuu rabaa masaariif iyo macaashki inuu la hoydo ayuu rabaa. habeenkuusan waxba la hoyan waa khasaaray ugu taagantahay isaga xaggiisa. hal maalin keliya oo ninka gaadhiga watee tagsiilihii uu waxba la soo hoyan waayuu ka murugoon oo uu ka calaacali 70 sano 60 sano 100 sano 80 sano ayaa ilaahay adduunka kugu siiyey fursad. banka qiyaama markaa tagteed haddii lagaa yidhaahda ka waran 80kii sano ood kusoo khasaartay. khasaaraha ifka qofka soo gaadha waa laga kabaa, laakiin khasaaraha qofka aakhiro soo gaadha cid ka kabaysa ma leh. faman thaqulat mawaaziinuhu fa ulaa'ika hum lmuflixuun waman khafat mawaaziinuhu فأولئك الذين خسروا أنفسهم
في جهنم خالدون والعياذ بالله خسارها إفك قفك سوغاري والله كبي أقل با أيا لها أقل كيبو دات كقادو ودمي والله دسي تعلين تيبو كدعي سكلا أم بهدنا أون ولا نولش ودبرن تجارة بول هاي وتجارة دي بكبا بعضي دب لقى يا بينو سكو سون قبته وقعن لا سيو العاويو لكن بنك قيامة قفك مركو يماد هدي لراد هبلو خساري oo 70 sano 60 sano adduunyada uu jooga uu ku soo khasaaray hadii la yiraahdo khasaarahaasi cid ka kabaysan bal qofkaasi نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ بالنبي عليه الصلاة والسلام لابا نعمدود aad u waaweyn ay dadku adduunka intay joogan ay maaragtaan ku dagman yihiin buu nabigu yiri labada nicmadood waa faraaqa iyo caafimaadka weeyaan laba nicmadood oo waaweyn ay dad badan oo maanta adduunka jooga hoos maraysa ghabuna fulan maqbuun macnaheega waxay culimadu ku macnaayaan culamaa lugha badaacadii magaalada lagu iibinayay $100 ayaad ku faraqdood ku iibisay $10 laba shay oo kaliya markay gacantaada ay ku hadhay ayaad ogaatay badeecadani inay joogto $100 meelaas ka soo qabato ma haysa markaa wixii gacantaada way ka baxeen labada nicmadood buu nabigu leeyahay dad badan oo maanta adduunka jooga way ku dagman yihiin as-sihhatu wal faraag caafimaadka ilaaha ku siiyay intaad caafimaadka haysa ilaahay caabud اغتنم 5 قبل 5 shan nicmadood intaad haysatid buu nabigu yiri shan ka horjeeda shanta nicmadood intaysan kugu dhicin uga faa'iideysa buu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam aakhiradaada firaaqaka qabla shughlika intaad gacan banaan tahay ee wax ka mashquuliye wali aanad helin firaaqa ka faa'iideyso hadaad bari aad mashquul noqotid firaaqa maanta aad haysatid ma haysanaysid intaanad mashquul noqon ka hor firaaqaaga uga faa'iideyso intaanad ka mashquulin ilaahay taacadiisa ghinaka qabla faqrika intaad ghaniga tahay ee baahidaadu ay urursan tahay ee xaajaadkaagu ay ku daboolan yihiin intaanay baahi ballaaran kugu dhicin oo taacada ilaahay ku seejisana ghinadaada uga faa'iideyso sihhataka qabla saqamika buu nabigu yiri intaad caafimaadka haysid caafimaad qabtid intaanad bukoon ka hor uga faa'iideyso nicmada diinta iyo taacada ilaahay uga faa'iideyso xayaataka qabla mawtika intaad nolosha aad haysid wali aanad dhiman mar haddii dadku ay dhintaan waxay oranayaan ilaahuna celi laakiin cid soo celinaysa ma jirtee inta aad nooshahay intayna geeridu ku iman nolosha geerida ka hor ka faa'iideyso oo noloshaada geerida uga sii faa'iideyso ila mar haddii la dhinto amalkii uu go'aya amalkii adduunyada lagu soo qabtay abaalkiisa baa bilaamaya marka la dhinto shababaka qabla haramika inta dhalinyarada aad tahay ee xoogga aad tahay iyo uga faa'iideysa intayna da'du kugu imaneed aanad gaboobin daanan lagu qaban ee mowdku ku qaban ka faa'iideyso dad baa marka la qabtay baraarugayaan hatta idha jaa ahaduhum al-maut qala rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون حتى إذا جاء أجلهم أجشود مركي كسو حاضر تبا إلى هيدي أما متكود أجشو مركي كتما دوح ورندونا ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب إله إنير هدي أجشي ديب لو دق لها فأصدق وأكون من الصالحين وصدق ديسا لها وددك ورمراكسنا صوصوبا بان من نقول لها وحال ورندونا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها نفهدي أجشو أي كسو حاضرتو dib loo dhigi maayo baa ilaahay saacadeedii hore loo dhigi maayo dibna loo dhigi maayo horena loo soo dhigi maayo qabrigii baa haddana la geeyay qabrigii markuu galo waa ka odhanaya rabbi irjicuuni lacalli acmalu saalihan rabbi irjicuuni ilaahu celiya igu celiya adduunkii maxaan ka soo qaban ma beeraan soo falan ما جناعسي بان كسو شقين ما سلطة سياسات بان رادين مي لعلي أعمل صالحا
haddii adduunka maanta la igu celin lahaa oo mar la ii qabashayn lahaa waxaa laga yaabaa inaan camal wanaagsan ka soo shaqayn lahaa salaadaan tukan lahaa soonkaan la iman lahaa zakadaan bixin lahaa sadaqadaan bixin lahaa waalidkaan u samafali lahaa jaarka xaqiisaan ilaalin lahaa wanaag baan ka soo shaqayn lahaa wax wanaagsan haddana bankii qiyaamaa la keenay muxuu leeyahay walow taraa id ilmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbanaa absarnaa wasamicnaa farjicnaa nacmal saalixan inaa muuqinuun bankan qiyaamaa la keenay waxau leeyahay ilaahayow maanta xaqiiqadii baan arkay maqalkiibaa ii furmay oo araggiibaa ii furmay oo maqalkii adduunyadaad ku qabtay maqal muunan ahayn may maqal saxa ma ahayn haddaad xaqa aanad maqlaynin maqalkaagu ma shaqaynaya ka dhigantaha uu xidhan yahay araggan adduunka dusheeda ilaahay kugu siiyey haddaad xaqa aanad ku arkaynin oo noloshan adduunyada nolosha ka dambaysa aanad arkaynin nidaamkan caalamku u socdo haddaad qudradda ilaahay awoodda ilaahay aanad ka dhex arkaynin oo dadka dhimanaya aad ku cibro qaadanaynin oo ka faqiirka aad faqrigiisa ku cibro qaadanaynin oo ka bugtaantiisa ku cibro qaadanaynin oo ka lixaadkale lixaadkiisa ku cibro qaadanaynin araggaagu sax ma ahayna wax kale aad arkaysi rabbanaa absarnaa haddaa ilaahow indhihii noo dilaaceen oon aragnay xaqiiqadii maqalkiina hadduu noo shaqaynayaayo oon maqalkii dhabtii aan maqalle ilaahow adduunka dusheedii nagu celi camal wanaagsan baan ka soo shaqaynaynaa innaa muuqinuuna annaku maanta waxaa nahay kuwa yaqiinsan ilaahay la kulankiisu xaq inuu yahay kuwa garanaya ayaa nahay ilaahow adduunka nagu celi bay leeyihiin ma maqasheen weli qof la soo ceshay maa samicnaa fii aabaa'ina alawaliin adduunka mar haddii laga baxa laguma soo noqdo وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير عقلك ما أنت أدونك تدخل لقو شيء يلي وعقلاء وخبراء وإن دير قرطو محو قرطا بقول كسنة إيسو سعوتا هي اسبدل كجيس كأفريقيا كدعيو كفالوضا صلاة الصبح ما تكذا ما تكذا saacadaha ilaahay samada adduunyada uu iman u leeyahay yaa waxay weydiisan hansiye ma yaqaanayo ma kacayo ilaahay sama barya may laakiin waa professor khabiir ender garato oo yaqaana isbeddelka geeska Afrika ka faalooda aqliga haddaad ku garan weyday Allahii ku abuuray aqli maaha indhahaagan haddaad xaqiiqada ku arki weyday in araggii saxda maaha qalbigaaga haddaad ilaahay ku abuuray aad ku aamini weydood macrifada ilaahay qalbigaaga ay ku degi weydo qalbigaagu ma noolo uu dhintay maqalkaaga haddaynan xaqa aad ku maqlayn oo xaqa marka lagu sheego aanad joogsanayn oo xaqa aad ku dhageysanayn oo xaqa aad u raaricinaynin maqalkaagu ma shaqaynaya ka dhigan tahay لكن مالين بو شقين دونا يوم القيامة قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن تشركوا به وإن ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم صمه وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير فالحكم لله العلي الكبير ربنا ereygan rabbana uu soo noqon doonaa meelo badan quraanka ajasha marka iimaanaysa rabbana buu qofku leeyahay qabriga marka la dhigo rabbi buu leeyahay banka qiyaama rabbi buu leeyahay naarta dhexdeeda rabbi buu leeyahay wanaadaw ya malik liyaqdi alayna rabbuk wanaadaw naarta dhexdeeda ka dhawaaqayaan ay leeyihiin ya malik wa malaga furaha naaraha ayay ku leeyihiin
rabbiga noo weydiin qudhahana kaga jaro han iska dhimanay meesha ku jiri kari mayne 40 sano kadib uu jawaabi uu leeyahay qaala innakum maakithuna ma dhimanaysaan haddeetole halka baad ku nagaanaysaan wal iyad billah آخرة انت سو جربي أرنا قالوا ربنا 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 فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ربنا وصنق نغنسا الدون كدوشي ذا حدي مركلية لغا هلي لها إنا تراد يا ربي ربي جاي الله الدون كدوشي ذا حدو قفك إلهي كو قرن لها قرشد إلهي الدون كو قرتا آخرة في عدون تيوغو أما قرشد خلقك بنك قيام إلهي كو قرن دونان ما شقينيسو تيبا شقينيسا قرشدي أدونك دوشيدا أي كلا يمادين صلاة دي أدونك دوشيدا أي كسو صلادين تصبيح دي أدونك دوشيدا إلهي أي كسو حسين طاعة دي إلهي أدونك دوشيدا إلهي كسو أدعين طاعة داس انت دوني بحالة كاتي تاسا بنك قيامة شقينيسا لكن بنك قيامة مركي لك كينو قرشد خلقك إلهي أي وذا قرنيان ما شقينيسي أقو عقلك وحو شقينيا وأنتو أدوية دوشيدا إلهي كبري وعقلك وأقرأكم شقين الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الكيس عاقل قفك عاقلك وقفك نفتي حسابية هبين كيبو حساب وتضبات كيبو حساب وبشي يبو حساب سيدا الدكان قال الله حسابيا الله دونا يا إن هذا وقتك أقول حسابي سيد نيجا صاحب الدكان كا رئيس مال جسوا الدكان جسوا بدأ عدو ويا محا ما أنت يقبح محا يسوق لي قفك بني آذن كا رئيس مال جسوا وقتك أقا وقتك ونمحوك كوبية هاي وسكن هي دقيقة ذو هي ساعة ذو هي مالمو هي أصابع هي بلو هي سندو هي قرون لسكو جيي ودقيقة ذو هبين يا مالين ويان وهبين يا مالين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مالمهن هبيني مالنتنا يا نولش بني آدم ويكون تاجنته سنتكم مالن يا هبين بوكسم اسميا أسبوع مالن يا هبين بوكسم اسميا بش مالن يا هبين بكسم اسميا ساعده مالن يا هبين دحدو ذيك كميان بني آدم كان قيامها تضباط سنة هدي أجرتي بقول سنة هدي أجرتي شري خير واحد أركتي شري خير واحد كهليسي شري خير واحد سمينيسي oo lagu soo qoray buug ayaa qoorta qof walba loo suraya markaas hal oran doona iqra kitaabkaaga adigu xagga ula baxo akhriso kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba maanta adaa iskugu filan inaad isxaabisidee cid ku xisaabisa uma baahnid isxaabi adigu maanta banka qiyaamu isku xisaabiyay xisaabtiisi markuu rogrogo wuxuu soo baxay inuu yahay ahlun naar muxuu sameyn markaa waa kaas meel iska soo qabta ma jooga ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني حرف التمني بو من دون أولا يا ليت وأدوية إنسان جوج إيمان إلهي أضيعه وما نبي محمد عليه الصلاة والسلام جد كيسي ميان راعو ميان دغن كإسلام كخد دغمو ميان دين إسلام كصدق إتداء نص وصعده ما أنت وان ليبان لها لكن خلاف كان خلاف إلهي أمر كيسا هي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيا هل كان الدكتيب ليه هي ما له سكسو قبتنا ماله سيدا نيكا هبينك نيكا الدكان له هبينك هو حساب تمي أيا الله دون يا هبينك نفتح له حسابي عمر بن الخطاب الله رالي كان نقضيه أيا أورنجري نفتي إنه حساب أنت علينا حسابين عمل كينا شر يا خير واحد قبته مالك ميزان كسر
bowgii qalin qaado subaxdii markaad kacday ilaa gabalku ku dhacayo sharkaagiina qor khayr waxaad samaysana qoro isxisaabi haddaad adduunka dusheeda isku xisaabisid oo adduunka dusheeda camalkaaga aad miisaanka saaratid waxaad ku fududaanaysaa xisaabta aakhira ku fududaan allah noo fududeeyo marka waqtigeenu waa tharwadeena ilaahayna siiyey yaan dayicin inaga maanta dadkeena zamankan waxay yidhahdaan waqtiga halkeen kusoo dilaa soo ma yidhahdaan gaaladuna waqtiga qiimihiisa intay garteen ayay yidhahdaan waqtigu waa lacag haddii waddanada reer galbeedka waddada aad ku socotay ay kaa lunto oo jidkaad maraysay aad ka luntid fursad u heli maysid qof inuu isku kaa taago ku tilmaamo dariiqii xaggu kaa xigay magaalada u socotay inaad ugu tilmaamo heli maysid waayo wuxuu kule intaa gaadhiga halkaa aan joojinayo waddada dhexdeeda waqti bay ugu socduu ku leeyahay waqtiga qiimihiisii bay fahmeen iyaku deedna adduunyadii bay geliyeen khayraadkii adduunyada ku jiran ilaahay waa u soo saaray falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay markii amarkii ilaahay ay halmaameen baraarujintii lagu baraarujiyey diinta markay ka jeesteenay iska dhega tireen baa ilaahay yidhi adduunyadii albaabadeedii baan u furnay baa ilaahay yidhi yaka waqtigoogii halkay geliyeen dhulka khayraadkii arlada ku jiro dhan bay la soo baxeen waa kuwa maanta adduunka dhan ku guumaysanaya ee ku hogaaminaya innagana maanta muslimiintu wuxuu leeyahay qofka muslimka waqtiga halkeen kusoo dilaa maanta ilaahay baa lahaa xadiis alqudsi in aadan u aflagaadeeyey uuna idhibayaa in aadan wuxuu igu dhibayaa markuu yidhi ilaahay wiil buu yeeshay ilaahay waxau leeyahay anu wiil ma lihi oo ma dhalin laymana dhalo mana dhalo keli baan ahay keli in aadan baa ilaahay leeyahay wuu aflagaadeeyey waa i aflagaaday wuxuu igu aflagaadaynayaa yasubu dahra wa ana dahru alamru biyadii uqallibu leyla wannahaara ina aadan habeenka iyo maalinku aflagaadaynaya oo zamanka ayuu caayaya zamankuna baa ilaahay yidhi waa aniga habeenka iyo maalinta anigaa babedelayo anaa keenaya baa ilaahay yidhi zamanka sidee dadku maanta u aflagaadeeyaan maxaa sidan kuu galay waqtigaa sidan ii galay ma yidhahdin war ma yidhahdin maxaa sidan kuu galay waqtiga halkaa i dhigay waqtiga iga jeestay buu ku odhan waqtiga iga jeestay waqtigaa sidaa ay baday waqtigaa iga xun waqtigaan fahmi lahay waqtigu muxuu yahay ilaahay baa kule yasubu dahra wa ana dahru ina aadan zamanka ayuu aflagaadayn oo leeyahay zamankaa iga xun zamankaa xun zamankiibaa iga jeestay waqtigiibaa iga jeestay waqtigiibaa adig kula haya maanta ilaahay wuxuu leeyahay zamanku waa aniga amarka gacantayduu ku jiraa habeenkii maalinta anigaaba bedelaya oo keenaya amarkuna gacantayduu ku jiraa kaan faqiir ka dhigana cid qani ka dhigi kari mayso kii aan qani ka dhigana cid faqiir ka dhigi kari mayso kaan kor u qaada cid hoos u dhigi kari mayso kaan hoos u dhigana cid kor u qaadi kari mayso kaan madax ka dhigana cid madaxnimada ka qaadi kari mayso kaan cizeeyana cid ma dullayn karayso kaan dulleeyana cid ma cizayn karayso kaan hadeeyana cid ma weecin karayso kaan halleeyana cid ma hanuunin karayso kaan anigu aan khayr aan siiyana cid shar u keeni kari mayso amarka ayaa leh allah baa leh waxba zamanka haflagaadayn waxba makhluuqana ha qabsan oo ha odhan hebel baa halkaa ii galay buu yidhi maalin mid dee iska soo saar hebel baan magaalada ka mari hebel baan magaaladii u daayay buu yidhi haye hebel baa nolosheeda ka xun hebel baa halkaa i dhigo sidaa ii galay
zamanka adiga kula hayade ana zamanka sida ay kale boqoran may sida ma aha qofka muuminka iimaan kala waa inuu umuraha waa inuu yiraahdaa haday dhib ku dhacdana waa inuu yiraahdaa dhibaatada igu dhacday waa dunuub anigu aan galay weeyaan adduunka laga goynaya haday barwaaqo ilaahay uu ku siiyana barwaaqada ilaahay baa ku qadaray hadii walaalka ilaahay uu nicmeeyana waxaad tiraahdaa nicmada ilaahay ku nicmeeyay hani allaka waan ku haneeyay haday walaalka balaayo masiiba ku dhacdana waa la tacsiideeyaa waxa la yiraahdaa insha Allah balaayada waad ka bixi doontaa walaal qadarka waa inaan aaminna zamanka ha aaminin ayaad aamini ilaaha zamanka abuuray cilaaqa la yeelo Abu Darda iyo Salman qisa dhex martay baan sheegay Salman Farisi buu ahaa radiyallahu anhu wuxuu damcay markaa inuu guursado Abu Darda iyo markaa uu nabigu walaalo ka dhigo walaaleeyay ukhuwat al-islam ayuu ku yiri Abu Darda iyo reerka gabadha fiican bay leeyihiin gabadh ordo iga doon waa hagaag marka dibadu ku sugaya aqalku aqal weyn ma waa aqal yaro Ariisha Abu Darda ba aqalkii soo galo wala soo dhaweeyay oo qoys marka Yaman ka soo guuray oo gabdho wanaagsan Ilaahay siiyay marka Abu Darda ba yiri waxaan inantiina heblaayaan u socnaa oo ayaad u rabtaa walaalkay Salman al-Farisi baan u rabaa marka bay yiraahdeen Salman inanteeda siin mayne laakiin adiga ku siinay ku yiraahdeen gabadha waligeedii mar hadduu ku yiraahdo waan ku siiyay uu ku siiyay ugu khalaas waa xaaskaagii laana waa saddexda nabigu yiri saddex kaftankooguna waa dhabtooduna waa dhab islaanay waan ku furay kaftan ma gasho way furantay khalaas nabiga ku salliya inantaydii waan ku siiyana kaftan ma gasho waa sidaad u siisay khalaas والعياذ بالله دينته وان كبخي قفك haduu iraadana waa ka baxay ogow والعياذ بالله marka Abu Darda uu yaabay gabadhii khalaas isaga la siiyay sidoo ugu sheegay walaalkii saaxiibkii Salman uu sugayaa Salman oo isna aroos isku diyaariyay arooskooguna bariga maba adkayna gabadha intoo la isa siiyo ayaa isla markaaba saxaabiga aqal yar loo tartiibinayay habeenkaaba uu aqal galayay إن العجها إيو دارها إيو تومشدا إيو هوتيلدا إيو بورها الإسكالة نعيا ما معصية الله قدس يا ما نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إن أنتي فاطمة مركو علي ودس أيكم مسكيت كسو وضع بحوس قرب سعود النبي كوير علي كورنا فاطمة هدان كودسو مركابو سوي جستو وكحش وضي فاطمة وان كسيه بيودي عروس نواتي صوت دياري بوكيدي وصعدي إن أنتي سيبوا نبي قلت يا فاطمة أبو وان كود سيدي ويا دير دستي علي وان كود دستي رضي الله عنها ويا مستوى حشوتي مركابي هذا شو أبا ما هذا البوكيري ده علي بعد دستي ها علي ويرعى البورية هاي هبنود ويا هبنود نقولي هو هبنكي عندها أد وحكما أركبه كتلي مركب النبي يقول فاطمة لقد زوجتك وإنه لأقدم أمتي سلما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما بكيري فاطمة إنك أنكو قريي وأنك إسلام نمضى أمد أقو صهر إسلامي وأنا إنك أمد أقو علم بدن وأنا إنك أمد أقو دلقات بدن برسول كيري بركنت أنا قادو قديفة أنا قادو ويل كان نبيها كل دان صدق عاون وكوين يا ديار جروب وكيدي نقول مك قبلها وحبكم ما درناه حوم كسبنا سوا تبادن صومالي مركي دسيس ويل كي خرج كبادن كل بحيان نبي يقول إن أنتي صفات ما مركو دسي ورعي بركين بوسي جوجل بوسي ويل بوسي بركا جور كاكو فضوضا كان زمن كان عذاب كان معها قو فضوضا نلاش وين فضوضاي جور كهدي الله فضيدية بعلماء دوليهين زنا ده إنه دل يرد كود عدايا أتكان هدي جور كلا أتكيو وحال فضيدية وجو زنا دي ولا فضيدية مركا جور كنا فضيدنا ديار مونا
وسبب تكليه بعلماء ليه فساد كان كل دقال الله مكرمه نقول كان الله بديو إن لفظيديو ولي بنا سلمان فارسي بنان قو تاغن يحي ولالك أبو درداء يوسوغ يا أبو درداء باسواب حي مركز سلمان بايدي بشارة بشارة وحي ماشا كدعي إنا كاقا ورما واكا حشونا يا بيودي ورا حشونا أي شيء ما اللي يالي مسوا اللي ديدي ونيو قبادي أدي والله قود ديدي لكن أنا اللي يسيو عروسة بيودي أنا بعروسة مركزو قصلي وحوري كحشونا أديك ما هي وعنيك بودوايو علف إلهي أديك كو قري علف كاجي سمد الله كاجا قري يا أديك أنو ندح سعودي بودي كحشون أديك ما هبود وعنيك إيه والله أديك الله كو بركايو زما كان أرنتها مدعي الهيد ولا أذكر رقم الله صوما وادير دكته أيك وحال لبري ورادر أمر إلهي بأدونك السعودة وإلهي قدرين بأدونك كدع وحق لك كدع مايو مركز زمن كيان وحبا أفلق هذين زمن كان نظام كالزمن كان والنظام إلهي حقي سكسعودة إلهي حدود في عن هدان ليا لأنه نولش أدونك وينو معانا ما تددك ودن وحيلي نولش وفهم لانهي نولش وحنو فهم لانهي ومحي حدودك إنك إلهي نور دحيي با ماشا كبحي حدودك هدان هجاجسنو نولش أدونك يتاخر إلهي بنو هجاجن إلهي بقرآن كيسي إنه وشيغو يري ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا قفك إلهي كبغي إلهي كعب صدا أمورتي سؤال وحا كدغنا فضيد من كانت الدنيا همه جعله الله الفقر بين عينيه وفرق الله شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له بنبي يري قفك همجي سكدغ الدنيا وحو كفكريا والدنيا وحو كشغينيا والدنيا وحو كسيحنيا والدنيا وحو كسوكعيا والدنيا وحو كهليا والدنيا وحو ايغيا والدنيا qofka hamigiisa adduunyo uu ka dhiga buu nabigu yiri arrimihiisa oo dhan ilaahay bariye galbeed buu kaga kala sheedinaya nolosha adduunyadana faqri baa labada indhood loo saaraya faqri waligaana ka baxayn baa labada indhood loo saaraya arsaaqadana inta ilaahay u qadaray mooyaan in kala ma helo rasuulku yiri waman kanat al-akhiratu hammuhu ninka hamigiisa ka dhiga buu nabigu aakhiro macnaheedu waa maxay yani meel kastuu joogo ilaahay buu kaga cabsoonaya صلاتي بو إلالينيا صونكي بو إلالينيا حقي دتكو سكي إلالينيا حقي جاركي سو إلالينيا حق دتكو لنولي هاي بسكي إلالينيا دنبيغو ير إلالينيا وناقي أيو كشقينيا هميغي سو آخرو عمل آخردي سكر داوعيا وكدكتون يحي عمل آخردي سبدبادين ينا وديرن يهو قبانا يا مر والبا نيك هميغي سكر دقابو نبيغو آخرو قلبيغي سا إلهي كردقا غني هضن تنمد قلبك إلهي سيا وفكم ماشي وكان نقضى عيدنا وقلبك ماشي غني كان نقضى نوه هالكي وقلبك يقول عن مدن هيبل وانن مليون ديرة ورقضها ماها واحد بني آدم كقلبك يسا غنى ذا قلينا يا غنى ذا قلبك وحق ليا وامركو قلبك جستو إلهي معرفة دي سي آخرة وين كده همي يسا نكا كدك أبو نبي قد آخره قلبك إلهي هضن تنمد وقبو حيا arrimihi soo dhan ilaahay baa isku soo ururiya adduunyaduna iyadoo dulaysan oo u san dulaysan ay hoostimaada rasuulku yiri adduunyadu muuminka way doondoonan harkaaga ma adu ku daba socda misala daba socda ya saa ku daba socda har adduunyadu baa leeyahay qofka adduunyadu waa sida harka adduunyadu diintay la socotaa adduunyadu aakhirada daba socotaa haddaad tiraahdo adduunyada ayaan u jeesan oo aakhiradii baan ka jeesan waxaad la mid tahay nin yiri harkayga ayaan soo qabanaya ma soo qaban karisid walam yaatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu ba nabi guri ma helo qofka hamigiisa adduunyo ka dhiga ma helo buu nabi guri illa wixii ilaahay u qadaray ma wax kale ma helo marka adduunyadan ilaahay baa nagu dhex abuuray oo inagu dhex imtixaamaya marka adduunyada ka tagana diinteenu inama leh hada ogaada adduunyada ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso laakiin qalbiga ha gelin taajir noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay ka gelin dhakhtar noqo
laakiin lacagtu qalbigayna ka gelin mas'uul noqo laakiin adduunyadu qalbigayna ka gelin waxaad noqotaa bay yiraahdeen culimadu sida doonta waxa loo isticmaalaa bariga mise badda maxaa laga ilaaliyaa biyayna galaan hadday doonta iyadoo badda maraysa oo rukaab iyo badeecad la saaray ay biyo galaan iyadii waxa saaranba way qarriqmi sooma qofka bini aadanka adduunka inuu ku noolaado ilaahay baa ugu talagalay inaad shaqaysataa ood wax barataa oo taajir noqotaa oo dhakhtar noqotaa oo injineer noqotaa oo caaqil noqotaa ilaahay baa kuugu talagalay noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay ka gelin hadday adduunyadu qalbiga ay ka gasho adiga iyo waxa ku saaranba wadagiyo ugu dad badan ba maanta way dageen Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu maal qabeen buuha ninka umada ugu khayr badan buuha Abdurrahman bin Auf maal qabeen buuha tobankii jannada loo bishaareeyna kamid buuha Uthman bin Affan maal qabeen buuha tobankii jannada loo bishaareeyna kamid buuha Jarir bin Abdullah al-Bajali ogaas buuha ajil saxaabada nabi Muhammad raga ugu qiimo badan buuha saxaabada rasuulku tujaar bay lahaayeen uqaal bay lahaayeen shu'ara bay lahaayeen dhakhtaray lahaayeen umara bay lahaayeen fuqara bay lahaayeen muallimiin bay lahaayeen ulama bay lahaayeen ogaasiyay lahaayeen laakiin marka la eego aakhirada iyo diinta xagga way ka wada sanaayeen iyagu xagga way ka wada sanaayeen kooga amiirka ila kooga maamurka simidaata ilaahay uga wada baqayeen simidaata aakhirada ugu wada fikirayeen cabsida ilaahay ay ka baqayaan iyo aakhirada ay ku xisaabtamayaan waxay u dib yareysay ma taqaanaa in adduunka dusheeda xaqqa ilaahayna iska ilaaliyaan xuquuqda bini aadamkana iska ilaaliyaan aakhirana ay tagaan iyagoon waxba lagu lahayn Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu khilaafada islaamka markii loo dhiibay waa markuu nabigu adduunyada ka intiqaalay sallallahu alayhi wasallam wuxuuha bagaash luha dharka iyo badeecadu suuqa ku iibin jiraa la yiri alaabtiisii buu qaato degtuu saartay Umar baa arkay ninkoo sii socda kale ya Abu Bakr ila ayna wuxuu leeyahay waa shaqo tagaya oo taladii ummadoo dhan ba adiga madaxa laga saaray madhaleeli oo reerkayga ayaa ii bilin soo anu ka mas'uul maayo ilaahay weydiin maayo muslimiinta oo dhan baa looga dhigay mas'uul madax khaliifata rasuulillah weeyaan mas'uuliyadda uu qabtayna lacag baad ku qaadan meesha ma soo dhigan isagu inaka maanta ka warraba ninka markuu mas'uul laga dhigay dawladda ama xildhibaan loo dooranayo muxuu socdaa bay kula tahay muxuu socdaa waa lacag fiican heeshi meelaha si fiican hawja jabsatid la waa xildhibaankii baa la oranaya oo loo banayn meel walba iyagu sidaa ma ahayn mas'uuliyadda umay arkayn meesha ciyaalkooga ay ka biilinayaan mas'uuliyadda waxay u arkayeen waa xilligii ummadda nabiga loo khidmeynayay waa adeeg ummadeed ummadda u adeegayaan ilaahay ikhlaaska innakan hayna siiyo Abu Bakr uu yaabay war ciyaalkayga reerkaygina ma haleeleysid oo masaariiftoodii ana ka mas'uule ana ka shuureynay adu noqo horta halka fadhiiso ma haleeleysid hadii toole wala shuureeyay waxa loo shuureeyay maadaama afar reer u lahaa in baytal maalka laga siiyo masaariif reerkiisa ku filan neef jeexi inuu kala qaybiyo maalin walba reerkiisa hilibkaas iyo raashin ku filan labadii sano ee uu talada ummadda hayay iyo dhowrkii bilood tiisi markay timiday godka lagu riday Abi Bakr as-Siddiq Allah raalli ka noqday inankiisa Abdurrahman ibn Abi Bakr oo lacag sida ayaa baytal maalkii yimiday Abdurrahman bin Auf oo maaliyada ninkii hayay ayuu yiri lacagtan baytal maalka ku celi markaas uu adeer lacagta xageed ku wada jooji wuxuu aabba Allah u naxariistay ayaa igula dardaarmo yiri haday taydii noqoto maanta waxa duuyaa maanta anigu dhul baan ku lahay magaalada Madiina dhulka iibiya lacagta ka soo baxda dhulka labadii sano iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda aan hayay baytal maalka lacag inta lacag baan ka qaadano masaariiftii weeyaan igaga celiya buu yiri inta inii soo hadhanayna ku dhaxal u qaybtaba buu yiri Abdurrahman bin Auf yaabay war maxaa leedahay aabba ku dardaarmay sidaas in lacagta lagu celiyo halkee
bayt almaalka وصدوق قاتي ومصاريفتي إنكوا أدو قرتين ورير كسيني لبدي سنادات أيوة بهاي قرنا يي دول كي ولها مركان يبينينا وحاولنا نقول دار من العقد إن الكيك اللي جا عليه بيت المال كلو عليه عمر بن الخطاب الله كان عمر ويي أبي بكر الصديق وأبو بكر وقبري أبو بكر بدول تجع عمر وعود ما ذا حذا أذيك الدبدا إيمان يسا والله واد دالسوك وقاري من أبو كيد وادنا دالسي أبو كيدي سدان أولنا هاي أبو بكر وقول دايدا وادنا دالسي بودي لبدي السنة دور كي بلادو ثلاث أمد هاي وأني كيدي جا عليه بيت المال كإنتاس حكام الزمن كأنك ورما فحاسي محاكيني والله كبق إلهي بكعب سنيين آخرة كو حساب تميين مركاسا كوغي مدحاها حق إلهي نوا إلاليي حقوق دي بني آدم كان أساسه اسكا إلاليي كوغي فقير كاها حق إلهي نسنو اسكا إلاليي حقي دد كان اسكا إلاليي وكوغي فقير كاها سعيد بن الزيد رضي الله عنه إسلام باكسو أشكتوتي حيك كسو أشكتوتي دول آن لها أيو بيرتيسي كدر صديتي ولي بعيل كان أنا قالي يدو هذا ملا أقو سجل سكله وبين أبو رشو عثمان بن عفان أمير المؤمنين تأوي علي سعيد وطبعا كي جنة اللوب بشاريين كمدا سعيد بن زيد أبو الأعور بركاسولي والله قاسوا دعوة سعيدو ويا قاسوا دعوة سلانتا بكاسوا دعوة دغدا وما حي قاسوا دعوتي رول يدو عيلة ذا هاي بعد قادة تيب يلا ليه ومع العيل كيضالي يا أمير المؤمنين أنوحا كم مغلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أولى دول أولهين تأكد دول أولهين نك الظلم كو قاتبوا نبي قيري مالك القيامة وحل لقو عقوبين دونا تضبط دول انتو سلسلة لوقو حلو أيا قورت لو قلنا لورن دونا جيدو لكع لما نكعي كريو ما نو حديث كان نبي محمد كهيو كم مغلي ما يقولتها حق بني آدمين عن ظلم كو قاتم إلهو حدي يقول بين أبو راني سبو يدي عندها كان قاد هدلن أضو عندها كان قاد موياني هل كان أي شيء قصي إله قد البويدي قولك وقع كعي حق قادة تبوليسية وإن دبش دم مركاسي أورنجرتي ويهبارك سعيد بايقول داعي ويهبارك سعيد بن زيد بايقول داعي أيضا إن دلو دولكي أي كل شيء قتي إسقط وريجي سو إن دلا أي عيلك كل دعدي برا عيلك بيكون دعدي لقى ما بسوا سرنا هالكي بقبرك لقى دقول لقواس حق بني آدم كعيار ما أنو النبي محمد كم مغلي تاك إلا إيجو دول حق الناس نيكا قردركو قاتا تضبط دول باقيامها قورت اللوغلية أو لقو إرادة لك عوجيد لما نكعي كربو النبي يقولوا مجيدي كرايو ما أنو حديث كان نبي محمد كم مغلي ما يقولها عثمان وين دول بني آدم حقدرك كقادا إلهو هذا يقول بين أبو رني سيبوري عندها كقاد هل كان إلهو كد البيوت أحسوا الله كبق وحبنا آدم كحقه كحاجه جنيه ومحي والله كبق مركز إلهي كو حساب تميسين وكو أركايو وكو مغلايو آخر إني جرتنا يكو هرتالو حق بني آدم إن أبدا كو ديرن ميسيد لكن قور موقفك بني آدم كو إلهي وظلمي كقلا بني آدم كان وظلمي كقلا وأمركو إلهي اللوبو آخرنا وخدك كسر سادرتي ولا ليال إلهي إنها نصر نقولها توبت كأنه إن يربنا الديود جوجنا إن ير وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت بريتولي نول بوحة ولا كل مدونة كما ورقبوا ماشى قبرجاك ونقون كما ورقبنا بركة ولا الوين عن آخرك حسابتنا آخره ما ديروا إنهم يرونه
بعيدا ونراه قريب إلهي باشيء قيامه مديرو حقنا وكادر يهي لكن نظام إلهي مرك الله في ريارنت واسدود هي بعثت أنا والساعة كهاتين لولا فرض النبي قسكو درريي فردا يا مردسدا يا فرد حدا النبي قسكو قبتي مركب النبي يري أنا يا ساعة قيامته سدا لولا فرض اسكو حجام بان اسكو حجنا برسولك يري مركا إلهي نحن صنقنا حكبنا إلهي قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله دينته إننا ما ركتاني حنك شقينه وشقاد دينته علماء يا معلمين توكلية كمسؤول ما هنا يا جماعة عدده قف كستو مسلم الدين الحلبة كسارا إن النفط هذا إصلاح صح وواجب إن هذا أمة إصلاح يجينا دالك أتكلم قادتنا وواجب دعوة إلى الله فريضة شرعية وضرورة بشرية بين العلماء دتكو إلهي حقي صلى الله عليه وسلم وفريضة شرعية ويان وانا ضرورة بشرية ودما مات دعوة أوباهن مسلم كيف أوباهن إن صلاة الله يرو ومسكيت الله يرو وحلقات الله يرو ودين الله نصيحيه قال كينا وحو أوباهن يهي إن إيمانك إسلام نمد الله بندقى أوباهن يهي مسؤولية دانا حل كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام بأمدي سسارو يدي لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أنا النبي قمدن بيبو نبي يقولي إنك أنا أمدي إنك قمدن بيسي كينا حاضر كما أنت إلى جوجو كينا مغنقارسي فرب مبلغ أو عام سامع يكوي مغليين صحابته أنت النبي كم مغلين بأدون كودن قارسيين هل كي مالنتي رسالة قارسيين بالليدي إنك كسر نقطة مويانة هل كي أي دقيقة بيتاجن تايمانت إن شاء الله إنكم إن دين تينا كشقينا وذا النيود إن شاء الله هبين دمنا واجمعة مركز كسر قيم قال كلن كدين تولي وحافظ دين المركز كون يدو بيه ومركز إلهي درتي أوبح لأن جيد هذا أنا عبسوني إسكبح هرم بحينه لين بالله واجد حنوك كورونا اللي بنبونين أيه أيال هذه كورونا لقاها له أفرت من عشق قولك كجري مو فدي مسوق بحر وكجري بدبال الشيء إسلام دي سيكون هاي سودوان عيالك هاي سودوان أنا أقول هالصعدو أفرت من عشق فدي استقول دحدي سو هرجب كوجبحه قلبي نين أديده كبحضه وعظم هذا مخلوق كبحضه والزمن كأن كنت تعلق صنها هي أنسيد دينه وحرير كإلهي أن صوت كيسنه أفر بلادنا المسجد حفرنا وما بانين مسجدك والراحة واللي بنا صومه هذا أنت إير ساعدنا وده هل لنا إمسا دارين كينو زيادة يا إمسا أنا قدرين كي يسبدل يا إلا وعن كان لنا ودينه بركة إن شاء الله بل يا إن شاء الله وقت يقولوا فرصة يقولوا إن الجماعة عدد إلهي درتي أبحايا أفر بلاد لباب بلاد فصح يدا عن هيستو إن إلهي درتي أبحو يا بليون إن شاء الله إن شاء الله هذا للوسائل حكم المقاصد بعلماء إليهن مددا لبحايو ووسائل الدعوة وسائل سيدا آلات كنيمة نقضوا بيسان إنكم مجع عليهم بريقوا هري لكن برياهن وحيد هذين والله بحاني هيسكا هلؤون لأنكم نوحي لين صور نحمرية خير ومضى ونشيقنا إن شاء الله هذا إلهي إنه نقا أقبلنا ورجيننا ها قبول يدا مهمة إمسا كود دقيستو كود دعوتي مهمة ها إلهي مكها أقبل يبقى مهمة مسوق وسوع شيء إلهي نجا أقبله إن شاء الله هبين دمنا فكر ديك وكسر ولا قيم قلنا ضد بدنا ولا لهنا وحنوصا يا جرود دعاءنا سو دعين بين إن شاء الله فاتحة دورت أمرا فاتحة قف والب إن شاء الله هلكو كربيسان يا هين إلهي قربة كقاضي هلكو كعبنا يا حنون كهين إلهي والضبيلها كالراعي لأن القرآن هو الدو دعاء المؤمنين تأسكت دعينا يعني إن شاء الله ومقبولة إلهي من نجا أقبليه ورتبل سورة الفاتحة وأخريها دنبيجنا الله هداف دنبيجا والدين تينا الله هداف دين الله إنه معنا مرل كان الله شافيه موجات كان الله ونحرست أمني إيمانك الله إنه زيادية طاعة الله إنه معنا دلني رضا ويلي قبل الله إنه هديه
madaxdeennana wixii diinta iyo dalka iyo dadka u daacada allaha tuso muslimiinta meelay joogaan muwaafiqiin midnimana allaha siiyo nin walba alluu ka kurbaysana kurbada allaha ka qaado dad badan oo xaadiriin iyo kuwa qaybin oo duca dalbay baa jire mid walba alluu ka kurbaysanya ilaahu adaaga kurbada ilaahu ka qaado caafimaad sariica ilaahu sii khaatimada ilaahu noo hagaaji waxaan ku hadlayna ilaahu hanagu qaban yaa allah noo naxariiso haddaad noo naxariisan ayaa noo naxariisan haddaad noo dambi dhaafan ayaa noo dambi dhaafi amniga iyo iimaanka ilaahu noo adkee ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين